waxaa maanta muqdisho soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminayo garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho ayaa mas'uulkan iyo wafdigiisa waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta iyo saraakiil ciidan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa Muqdisho u yimid ka qaybgalka shirka ay soo qaabisay beesha caalamka kaasoo la filayo dhawaan inuu ka furmo magaalada Muqdisho caasimadda dalka afayeenka xukuumadda Puntland Yusuf Jaamac Yusuf Dabrani ayaa ka warbixiyay socdaalka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi hogaaminayo ayaa goor dhaweyd soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani mas'uuliyiin kala duwan ayaa halkan ku soo dhaweeyay. wafdigiisu waxa uu ka kooban yahay xubnaha golaha wasiirada xubno ka tirsan iyo saraakiil madaxtooyo. dabcan aad baan u bogaadinaynaa sida wanaagsan ee madaxweynaha loo soo dhaweeyay. waxaan u mahadcelinaynaa مسؤولينta kala duwan rag iyo dumarba leh muddada dheer maanta taagnaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho si ay halkan madaxweynaha iyo waftigiisa u soo dhaweeyaan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin waanu dhownahay. madaxweynaha iyo waftigiisu waxa ay u yimaadeen halkan safar la xiriira safar shaqo oo qayb ka ah safarada looga shaqeynayo masiirka dalka arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka Soomaaliya. waxaana uu ka qayb gelayaa shirka lagu wado inuu ka furmo dhaqso magaalada Muqdisho kaasi oo looga tashanayo sidii dalkan ay uga dhici lahayd doorasho lagu wada qanacsan yahay, doorasho sharciyad leh, doorasho dalkan si wanaagsan uga dhacda oo ay sal u tahay heshiiskii 17kii September 2020 la gaaray iyo sidii loo xalin lahaa caqabadihii ka dhashay hirgelinta heshiiskaasi oo caqabadihii ka dhashay sidii loo hirgelin lahaa. waxaana uu qayb ka yahay geedi socodka guud ahaanba dalka Soomaaliya arrimaha siyaasadda gaar ahaan doorashooyinka.